dhibka ay hadda maalmahan dhowr qof oo dhawaa la dilay oo iyagoo wax dili raba wax qarxinay dumarka badan marka gabdhaha ruuxadooda waxa la rabaa inay qayb ka qaataan nabadda oo waa dareemaya caadifadooda rag baa khaldaya oo waliba qofka marka laga soo galo dhinaca caadifada diintaana waa dhib badanta tii hore oo dhaqanka way ka adkaysteen laakiin runtii middan diimaysan oo dadka lagu marin habaabinayo cadawga ugu weyn oo hadda Soomaali leedahay waa kaas dadkan xaq jirka ah oo dadkii hore xataa dagaalka wuxuu u rabo qab iyo qabiil iyo wax maroorsi iyo xalba hayde kuwaan anigu asifeen waxa ay rabaan ilaa hadda ma garan aan ahayn inay ummad jirta baabiyaan kaliya iyo waxay u adeegayaan aad looma fahmi karo marka kuwaas u baahan in meel looga soo wada jeesto oo runtii u malayn maayo kuwaas haddaysan dabcan dadka la khalday ka hadli maayo oo dhalinyarada ah nabad waan ugu baaqaynaa laakiin dadka fikirka ka dambeeya dad nabad u socdo uma eka dabcan nabadana waa la ammaanay sulxa waxa xadgudbana in xadka laga jaro ilaahay uu amro ruuxada marka wixii xadgudba ruuxadiisa in xadka lagu qabto oo gacan adag lagu qabto iyaduna ma diidayso deganaanshahay qayb ka mid tahay laakiin xalka koowaad mar walba ma aha xalka koowaad waa nabad iyo wada hadal wixii ka dambeeyeen waqti sidoo kaleeto Soomaaliya xaaladda ay ku jirto waxaan ogsoonahay dib heshiisiino fara badan baa la qabtay waxa kaliya ee aan isleeyahay waa una jixil aadahay laba arrimood mar daacad lagama ahaan marna si dhab ah looma guda galayo meel sara baa la raacay haddaan dadku xaqiiqada uusan ka warramin oo gudaha u gelin waa adkaanaysaa inuu ka gungaaro waxaan ugu baaqayaa cid kasta oo wax naga dhexeeya nabad iyo dib heshiisiin iyo garnaqsi xaqiiqa ah arrinta u horeysa waxaan u dirayaa Somaliland dhulka Puntland shaarkaaga waa lagu qabsan karaa ay hadda ku xadgudubsan tahay wada hadal iyo nabad inaan ku dhammayno oo ay ku garnaqsadaan baan ugu baaqaynaa waxaan diyaar u nahay wax hadda mugdi ku jira ma aha laakiin inaan wada hadal dhab ah oo nabad waarta ka dhalaya geyiga in laga gaaro diyaar baan u nahay مسجكنا كواد وكاس وحكستا وبنتلان كحون وحنكون قاعدين هنا نبض Soomaalida inteeda kale waxaan u baaqaynaa deegaanada wali shidooyin ka jiraan inaan dagaal waxba lagu xallin karin nabad iyagana ku xaliyaan nabadda iyo dowlad dhisku waa kala duwan yihiin marka dadka Soomaaliyeed haddii maanta dhashir loo qabto qabaa'ilkooda waxba iskama hayaan oo hadda qabaa'ilka Somaliland deegaanada Puntland ahayn iyo annagu maalin walba isdhex marayna waa ahli iyo qaraabo leh laakiin waxaa la rabaa dib u heshiisiin siyaasadeed oo sax ah oo garnaqsanaysa la rabaa siyaasadda Soomaaliyeed waxaa la rabaa inay si dhab ah u abaarto inay ka wada shaqeeyaan deganaan si loo helo horumar oo dadka loogu adeego wax kasta oo intaa ka soo hara waxay abuurayaan calow iyo iska daba wareeg iyo jahwareer iyo xaalad murugsan oo aan xal laga gaarin intaasba ummadeenna dan uguma jirto marka reer Puntland hadda iyo hadhow iyo bariba mar walba message-kooda koowaad waa inuu noqdaa nabad Soomaalinimo midnimo ururin wixii intaa garan waayana weliba u dhibrinaynaa dagaal ku baahimayno laakiin iyaduna haddii qofka uu garan waayo wixii waajib ah oo dadkaas ay ku leeyihiin oo dowladnimadu farayso waa ay qaadayaan haddii ilaahay
buuggan waxaan ku boorinayaa dadka inay akhriyaan akhrin kaliya maahan inay daraaseeyaan waan ugu daray maadaama muddo dheer cilmi baaris u ahaa buugaagtu waa kala duwanta buugaagta cilmiga inkastoo ay dhici karto dadka qaybtiis inay ku adkaato luqadda lagu qoray oo aniga inaan ka mid ahay dhici karto kuwa badan baa iga baxsaday ya marka waxay la tahay iyadana erebixin haddii la waayo hadda waxadka haddaan dee qawaci waayana cabaas iyo waxaan wacaya dadka sugaanta yaqaan kelmadii u adkaato waa la fasiri karaa inkastoo kelmado badan oo asalkooda carabiga uu ka buuxay luqadda soomaaliga oo runtii aan filayo laakiin sida la isu saaray runtii waxay ahayd si aad u mug weyn meeshaan hadal badan kama furna deeqa noo gabagabaysay taladeedina waa qaadan inaan nabadda ka shaqayno waana rajaynaynaa insha allah dallam doon oo xasilan inuu Soomaaliya noqdo oo wixii tagay in laga go'aantoobana waa rajaynaynaa aad u mahadsantihiin wassalaamu calaykum dulki barakada lahaa halkii barashada wacanayd wanaagu badtu ku koray waliba sama lagu buddhigay wanaagu badtu ku koray waliba sama lagu buddhigay Puntland weeye ogo Puntland weeye ogo dulki barakada lahaa halkii barashada wacanayd wanaagu badtu ku koray waliba sama lagu buddhigay wanaagu badtu ku koray waliba sama lagu buddhigay Puntland weeye ogo Puntland weeye ogo ويام بلي قرحون dalxiiskana loo boqrado indhuhu bilisami jantaan dalkana bilibayu tahay Puntland bal weeyaan bili qurxoon dalxiiskana loo boqrado indhuhu bilisami jantaan dalkana bilibayu tahay Puntland balad weeye nabadeed barwaaqadu ay dhextaan haddana waa baro jacayl dalkana baaxadda leh dadka badanee ku nool Puntland hooyayu tahay dalkana baaxadda leh dadka badanee ku nool Puntland hooyayu tahay Puntland balad weeye nabadeed barwaaqadu ay dhextaan haddana waa baro jacayl dalkana baaxadda leh dadka badanee ku nool Puntland hooyayu tahay dalkana baaxadda leh dadka badanee ku nool Puntland hooyayu tahay Puntland wadaraha